waxaan isugu nimid halkan inaan ka tashano sidii aan horeba u wadnay mustaqbalka dalkan. Waxaan wada ognahay in waxa dowladnimada la yiraahdo asaas waxa uu ah sharci. dowladnimada asaaskeedu waa sharci iyo dastuur. sharcigaas uu weyn yahay dastuurka. dastuurka dowladda Soomaaliya laba qodob oo asaasi u ah baryahan aad u taagan. qodob waxa weeye dowladnimada Soomaaliya dib u curatay waxaa lagu heshiiyey kow inay federaal ahaato, dimuqraadiyana ahaato, 4 sanaba mar xilka la isku wareejiyo. arrintaas ayada ah dad aad u badan faham badan kama haystaan. sababtaysa faham u haysanina waxay tahay 4 sano iyo isbeddelka waxa loogu talagalayba macnaheeda aad u madhaadhacsan. haddii xukunka aan sil nabada oo lagu kala wareego uusan jirin, waxaa imaanaysa siyaabo kale in loogu kala wareego. dalkeenna keliyana maaha, dalal badan oo dhibkaas haystaan. dalal badana madaxdooda xukunka iska xoogaan. markay iska xoogaanna aad arkaysaa 30 sano, 35 sano, 20 sano qaar inay ku fadhiyeen. laakiin dalalka dimuqraadiga ah oo sistemka dimuqraadiga qaatay muhiimadda ay ka shaqeeyaan waxa ay tahay in dalka 4 sanaba mar xilka lagu kala wareego. dalka Soomaaliya 4 sano ee muddo xileedka nidaamka hadda dalka jooga u lahaa waxay ku ekeed 7 Febraayo. kaas waa qodob aad muhiim u ah in la xasuustana runtii mudan. qodobka labaad waxa weeye oo dastuuriga ah oo asagana baryahan dood badan ay ka taagan tahay waa qodobka khuseeya banaanbaxyada nabadeed ee ay ku dhawaaqeen midowda murashaxiinta. runtii haddii aysan sistamka hadda madaxweynaha xilkiisu dhammaaday uu joogo aysan culays ku haynin oo uu taageerayaal leeyahay oo uu isku kalsoon yahay, muxuu u diidan yahay mudaaharaadka? waa su-aal in la isweydiiyo mudan. dad badan oo taageerayaal ah oo asaga uu leeyahay ama la jiraba oo marar badan lahaad arkaysaa madaxweynuhu taageerayaal aad u badan uu leeyahay. marka madaxweynuhu taageerayaashiisa waa fiican yihiin, maalin ha qaataan, annagana maalin hana siiya. madaxweynuhu xilkiisu dhammaaday, taageerayaashiisii asaga maalin ha qaataan, annagana maalinteen aan tagno. haddii marka kalsooni darro intaas la-eg ay jirto oo ogeydeen jimcihii lasoo dhaafay wixii ka dhacay magaalada habeenkii iyo subaxiiba aa markhaati ka ahaydeen, waxaa noo furan waxa ay tahay inaan adkaysano. dad aad u badan oo nidaamka farmaajo la jira oo la dhacsan caqligooda asaga maogtahay qofka aad ku daysanay sidaa ku caqlita caqligooda asagaa cabir u ah. cabirkuna waa ki xalay uu noo sheegay madaxweyne Deni oo ahaa aniga meesha waa iska joogaaye dadkii lalahay meeshay kugu imaanayaan aawo ma ii yimaadaan. runtii warkaas aniga sida uu yahay inuu u jiraan aaminsana. ninkaas haddii aan inta aan aqaanay 4 sano in nagu filanaan la wada joogno. waxaan rabaa inaan idiin sheego marka haddii aan aqbalno in aan mudaharaadi weyno oon waxa aan rabna aan dhihi weyno, marka dambena waxaa ku xigta in wixii kaloo rabana laka sameeyo. nin jazaa'iri ah oo filosofer ah Malik ibn Nabi la dhihi jiraa wuxuu yidhi haddaad ka aamusto sheegidda runta iyo xaqa, haddaad ka aamusto oo afkaaga aad saarta lijaan, qofkaas aad afkiisa lijaan ka saartay marka dambena wuxuu isku darayaa inuu rar ku saaro, doodkaaga uu rar saaro, kabad inuu saaro doodkaaga si uu haamankiina kuu saaro. markaas nidaamka hadda dalka ka jira xilligiisii waa dhammaaday. isagoo xilligiisii dhammaaday yuu haddana oo sidaas ah ooba asaga in lala xisaabtamo ay ahayd yuu wuxuu diidan yahay xaqeenna dastuuriga oo ah inaan mudaharaadno. qodobka 20aad ee dastuurku ku qoran yahay mudaharaadka
akhriya dastuurka looma samaynin inuu meel iska yaallo waxaa loo sameeyey tallaabooyinka dalkan laga qaadayo inay noqdaan tallaabooyin asagaas waafaqsan oo ku dhisan wuxuu leeyahay mudaaharaadka iyo banaanbaxyada waa abaabuli kartaa ama waa ka qayb geli kartaa labadaba adiga abaabuli kara ama waa ka qayb geli kartaa mudaaharaad nabadeed adoon cidna fasax uga qaadan waxaan rabaa inaan idiin sheego qofka muwaadinka ah maalin dhaweedoo jimcaha ahayd iyo habeenkiiba markaa arkayseen oo aad maagteen qaar badan oo idinka mida soo baxa oo guriga askariga jooga albaabkiisa oo qorab kugu qabta waa ififaalo aan qurxoonayn qofka wax fahmaa dad badan oon fahmaynaa jiro weli oo u haysta ishuu wallaahi ishuugaas ishuu la fududoo hebelaa lagu xumaynaayo ama hebelaa kursi rabid maaha waddankan kuraas waa lagu soo haysan jiray dadna waa lagu soo dhoweyn jiray madaxweynaha hadda waqtigiisu dhammaaday magaaladaana lagu soo dhoweeyey halkan ilaa lambar 4 a isqabsatay dadka soo dhoweynaya hadduu kalsoonidii qabo shalay lagu soo dhoweeyey waa u furan yahay mudaaharaadka daljirka dahsoon maalintiisa ha tago annagana maalintaana ha noo daayo waa iska fududahay arrintaas hadday sidaas dhici weydo marka oo sidii maalin dhaweed dhacday maxaa noo furan annaga haddaan nahay dadka taageersan midowda murashaxiinta haddana xisbigeenna UPD maxaa noo furan annaga sida madaxdeennu ku dhawaaqday maalinta jimcaha oo soo socota haddana waa bannaan baxayna waxa ugu badan oo laga baqayaa Soomaa in nala xabadeeyo xabadaas ama ay dad disho ama ay dad dhaawacdo ama iyo wax la mida waa u diyaarsan waxaan rabnaa waa loo diyaarsan yahay nidaamkana intuu gardarada wado asaga gacanta dambe ee daciifka asagay ku dambeynaysaa laakiin waxay rabtaa adkaysi ciidanka runtii kala duwan waxa ayaan daro ah in ciidanka lagu soo weeraray madaxdii qaranka oo labadii madaxweyne ay ka mid ahaayeen habeenkii jimcaha oo hoteelkoodii lagula soo weeraray oo ciidankaasoo la yidhaha ciidanka gorgor baabuurta uu watay oo dowladda Turkiya ee walaalahaana ay soo siisay ee 12 baabuur ah markii ay soo degeen meeshii la geliyey dagaalkii koowaad ay ahaayeen waxay ahayd dagaal ay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ku qaadeen ciidankaas markuu dhismayay xerada lagu tababaray iyo kullina asaaskooda waxay ka imaadeen shaqo ay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh qabteen aad iyo aad bay ayaan daro u tahay runtii aad iyo aad bay ayaan daro u tahay ciidankii loo dhisay inuu dalkan difaaco in madaxweynayaashii dalkan oo sharafta iyo karaamada lahaa loo soo adeegsado wiilashaasna la soo wado gabay carbeeda jira oo dhahaya asadun calaya wa fil xuruubi nacaamatun anigana libaaxu ii yahay markii dagaalka la tagana sida gorayadii uu yahay ciidamadaas kala duwan haddii ay rabaan in dalka Soomaaliya ay khidmadii loo baahnaa ay qabtaan ma aha inay qof difaacaan ciidamada sideeda qalabka sida militariga qolada liiraana loogumaba talagelin inay mudaaharaad ka qayb qaataan ka hor tagaan ama caburiyaan maba loogu talagelin gorgor ciidanka la yiraahdo iyo wixii kale oo la mid ah shaqadoodu waa inay jidkan afgooyay xamar oo la isku mari laayahay ama midka jowhar iyo ay noo furaan iyo wixii ka sii dambeeyaba haday keeni karaan magaaladan boolis ay leedahay booliska iskale mas'uuliyad hadiiba mudaaharaad si looga hortagay mudaaharaadkana si looga hortago maba jirto aniga idin sheegay waa xaq dastuuri ahna qofna marti loogama ah ciidankaas marka waxaan u sheegaynaa kala duwan haram cadle gorgor leh boolis leh nabad sugid leh runtii mas'uuliyad darri ku taa waana lagu xisaabtamaa inay madaxweynahaas waqtigiisu dhamaaday intay amar ka qaataan magaciisa wax ku dilaan waddankan wuxuu hadda ku fiican yahay waxa la samaynayo dhan waa dukumeenti garaysan yihiin ururkii iyo unugtii wax dishaa ayadaa mas'uulka ah ururadii ma habeen dhaweed weeraray madaxda waa la yaqaanaa waa qoran yihiin dadkii ka qayb galay madaxdii wadatay kulli waa qoran yihiin from 17 December weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu qaaday ilaa maantay dadka Soomaaliyeed waxay go'aan ku gaareen cidii soo weerarta oo si gardarro ah ku soo weerarta oo sharci darro ah qof markii la weerarayo hadda koorno waa ka sheegay 17 December maxkamadu u baahan yahay
weerarna mabale waaran wax la yidhaha qofka laga raba waa la soo xiraa soomaa qofka waaranaa loo keenaa waarankana maalinaa loo keenaa maxkamadaana qorta waxaan rabnaa inaan marka ciidankaas u sheegno in ay kuwooda milatarigaana faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda oo meelahoodii loogu talagalay iyo tababaradii loogu talagalay ay jiraan kuwooda kaloo booliskana mudaaharaadka nabadeed ay ilaaliyaan oo ay waardiyeeyaan oo dhibaatada ay ka waardiyeeyaan oo kuwa qalalaasaha wato kusoo dhex dhuuman kara ka ilaaliyaan oo haddii shabaab oo dhib u geysan lahaa ay ka ilaaliyaan intaas markii aan ka soo tagno mudanayaal iyo marwooyin mudaaharaadku waa soconaya haddii la yidhaha sida madaxdu ku dhawaaqday wax oo fudud weeyo wallaahi waa jilcan yahay idinma lih dad badan oo kaftamaya oo ku kaftamaya madaxdii maalin dhaweed inta mudaharaaday dhashiikayaasha lala dhacayna waa arkay qof inta dhashiika lala dhacay meel taaganna hore umaana arkay marka waa iska fududahay gurigiisa qofki joogaa inuu qofka ku qoslo aad bay u fudud marka ayagaba waxaan u sheegaynaa haddii la yidhaha kuwa qoslayo oo dhashiika in loo istaaga aaminsan jimcaha soo socdaa dhashiikii laga hortagaya hanoo yimaadaan aan ugu soo biiraan annaga dhashiikahaas dhashiika uma wadano aaka uma wadano annagaa soconna madaxdii dalkaanaa socotay ra-iisul wasaarihii 3 sano ee bar madaxweyne farmaajo la shaqaynaya yay eed horta wixii maalin dhaweed madaxweyne farmaajo uu dhashiikaha la dhacay raggeena kale waaba loo qaatay oo waaba ismucaaradsanayna ra-iisul wasaarihii yaa nala socday hogaamiyaha xisbiga wada jiraa nala socday madaxweynihii hore galmudugaa nala socday xildhibaanaa socday madax kalaa socotay shacabaa socday hooyooyinaa socday bal ilaahay baa idinku dhaariyey sababta keenaysa dadkaas in dhashiika lagu rido ma ii sheegi kartaan iyo baasuuki maalin dhaweed baasuuka lagu soo riday mudaaharaadayaasha eeraboorku ku dhacay waa ka gubay eeraboorka ilaahay yaa naga baxshay insha allahu midda soo socotana ilaaha naga bixinaya ayagaana haddii oo aa xanuunsanaysiin ayagaba waa xanuunsanaya hadday marka dadka laynayaan iyo haddii kaleba waagii hore waxaa la dhihi jira mogtaa madaxda dadkay rabtaa inay mudaaharaad siiso ay jidka ayaga geyso oo ayaga dadka dhintaan ayaga ma rabaa inay dhintaan horta mudaaharaadka madaxdaa hogaaminaysa maalin dhaweed haddana ayagaa diyaar waa inay hogaamiyaan dadkan taageerayaasha waxaa laga rabaa inay madaxdoodaas iyo aragtida ay ku taageersan yihiin waxaan waa aragti ma aha reer ma aha koox ma aha wixii waa aragtida aad ku taageersan tahay inaad kula timaado haddii ilaa yidhaahdo maalinta jimcaha aan ka soo wada qayb galno soo diyaar garowno meeshii madaxdu noo cayinta aan nimaadno qof walba iyo guri walbana qof walbana uu soo dhaqaaqo askari walba iyo meel walba joogana aniga ma aaminsanay hadda inuu askarta intaan la hadalnay intaan hadda wax walba waa aragno dee dadayba dileen habeenkii jimcaha oo subaxii annagayba nalay tegeen laakiin inaan u diyaar garownaa nala ka rabo waxaan idiin sheegaa nidaamka dictatoriska marka keligi taliska dad badanaa weli aniga fahamsii lahay laakiin 4 sano wax badan oo farmaajo laga aaminsan maalin walba aan ka sheegi jirnaa maalinta ka dambaysa dad kusoo qanacaya laakiin waxaan rabaa inaan kusoo qatimo keligi taliska systemka keligi taliska ah wuxuu leeyahay markuu samaysmaayo adiga ma ogid inuu samaysmaayo dad badan uu la fiican yahay hadda maya in la kala adkaado waay soomaaliya xoog inuu jiro waay taangiyada maalin dhaweed madaxda loo isticmaalay madaxdii dalabtay oo codsatay oo ciidanka dhistay weeye horta wax loo isticmaalay marka caqliga aad leedahay waxaas waa fiican yihiin muxuu ku salaysan yahay su-aasheeda aniga waa taas waxaan rabaa inaan idiin sheego keligi talisnimaa samaysmaysay 4 sanay socotay intaasna aniga dadkii ka digayaan ka mid aha ilaahay maadiis oo mar raba layguma sirin habeenkii qalbi dhagax la dhiibayo aniga ka hadlayo on lahay qof in la dhiibo iyo dadka dhan in la dhiibo waa isku mid dad aad u badanaa waxay lahayn maxay dhibaysaa hal qof in la dhiibo berrina waxaa laga yaabaa inaad maqasho qof in la dilo maxay dhibaysaa laakiin qofka yaa xadiisaa jira nabiga sal allahu alay wasalam qof in la dilaa ka qaalisan in kacbada la dumiyo kacbadoo la dumiyo waxaa ka culus oo ilaahay agtiisa uga culus qof in la dilo nidaamka soo jeestay ee dabaabaadka mudaaharaadka la soo aaday inaan ka hor tagno oo iska celinaan u baahana waxaan isaga celinaynaa mudaaharaadka nidaamku asaar raba dalkan inuu dagaal geliyo asaar raba in qoray lagu taago annaga diyaar uma nihin haddii ilaa yidhahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin intii maalin dhaweed gurigooda qofka ku diyaar garoobay iyo kii albaabka laga celiyey
iyo kii ka qayb galay iyo kii tegey ee dhibaato ka soo gaartay ayadoo dhibaatadaasoo kala duwan intaba waa mahadsan yihin kii inta soo niyeystay albaabkiisa oo askari taagan yaha arkay ama qorab lagu aaciyay ama yani layidhi waa ku dilaa layidhi askarta waxaan u sheegaynaa dadka inay dilaan looma tababarin mushaarkana looma siiyo canshuurtana laga qaadana mushaarka loogama dhigo inayna dilaan ma inayna difaacaana loo siiyaa mushaarka qofna ma difaacaan dadka Soomaaliyeed la rabaa inay difaacaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin